qaybtii labaad waxa ay noo maraysay iyadoo lacagtii xariisanayso weeljarkii ku fadhida odaygii waxa uu galay inantii u canaantay waxuuna ku yidhi waan ogahay wax waliba in meesha ay ka socdaan balse waxaan rabaa inay afkeedu ka caddaysato aabe waxaad samaysaa aan jinno in ay jiis tahay si aysan inoo ogaan ilaa aan keedayna caddeemacad gabadhii waa ay farxday waxaana lagu yidhi soo bax oo raaligeli eedadaa way soo baxeen way raaligelisay oo laabtay gelisay balse iyadu mar waliba faj ayay damacsanaydee waxa ay samaysay lacagtii ay naagtu siisay ayay rabtaa inay iyadoo dembiga ka saarto oo waxa ay tidhi lacagtan ad arkaysid mujeeda waxa keentay gabadhaada waxa ayna rabtaa inay hadhow aanay igu dhibaatayso odaygii waa uu xanaaqay gabadhiin waxay tidhi anigu shaqa ku maliyey iyada ayaa la soo siiyey balse qofka weyn ayaa mar walba warkiisa la qaataye waxa ay ku tidhi iyada ayaa sababteeda lahayd iyadaana keentay lacagtan hadda ayaana ka qaaday odaygii inta uu ku canaantay gabadhii ayuu yidhi bax qolkaada gal balse odaygu waxaa la dareemayaa inuu wax waliba fahansan yahay balse uu raadinayo caddaymo intay wada hadlaya ayaa la soo garaacay albaabka waxa uu yimid gabadh taasoo albaabka taagneed waa tii hore ee lacagtii dhalada siisaye waxay ku tidhi waxaan rabaa inaad lacag ku sadaqaysto ee gabadha wiiljarka ku fadhisa ee halkan ku tuugsata waa uu yaabay oo wuxuu yidhi tuugsi noocee ah waxaa lagu yidhi haa mar walba ay tuugsataa waana siiyaa lacag oo maanuuliba ayaan imaadaa lacag kalena waa loo dhiibay odaygii lacagtii ayuu ka qaatay waxa uuna yidhi waa yahay la soco qaybtii saddexaad ee sheekadan